jaaliyada ka soo jeeda deegaamada Wamo ayaa taageeray maamulka dhawaan loogu dhawaaqay magaalada Muqdisho ee Wamo State iyagoo sheegay in magaca Wamo uu yahay kan asliga ah ee uu deegaankaasi leeyahay. Wamo State waxa weeyaan waa magaca asalka ah oo runta dadka asalka Wamo u lahaa iyo dadka qabsaday meesha doodii dhexmartay ahayd xaqayga ay sii ku siin maayo ilaa laba dood mas'uuday mar haday sidii noqotay mas'uulina wuxuu noqonayaa in la sameeyo Wamo State waxa la yiraahdo xaq oo qof walba ku jiro. tani markii la aasaasay maamulka Jubba ee ka aramiya jubbooyinka ee madaxweynaha uu ka yahay Axmed Madoobe waxa jiray caqabado dhanka qabaa'ilada deegaamadaasi uga imanayay. Jubbaland waxayna soo gashay 59kii wixii ka dambeeyay ayna soo gashay original dhulku waxa la dhihi jiray Wamo marka arrin siyaasadeed raadeed ayaa magacii Wamo oo originka ahaa oo dhaxalka ahaa ayaa loogu bedelay Jubba ama Jubbaland marka kullu shay yarjic ila asli dalka ka baxa deegaamada Wamo waxay kaafisaa Soomaaliya oo dhan wayna soo martay annaga 1960kii ilaa iyo 90kii inta dawladda ka dhaxaysa Wamo State waa la yaqaanaa wixii ka soo baxay dalka ka soo baxa Wamo sida hore uu sheegay wuxuu kaafinayay wadanka oo dhan wixii ka soo haranay dibadda loo dhoofin jiray. waxaa ka qayb galay aqoon-yahano iyo mas'uuliyiin matalaysay maamulada dalka ka jira qaarkood. madaxweynayaal badan waana soo mareen waxaan u baahanahay madaxweyne ka bedelan kuwii hore waxa loo baahan yahay madaxweyne cadaalad ah waxa loo baahan yahay waxqabad haddii marka Wamo laga soo sheekeeyay Axmed shuqul aan uga dhigno oo aan ku taageerno oo aan garab ku siino inuu madax nooga noqdo ya ma taqanin yaan u helinay Soomaaliya oo dhan baan u helinay. Wamo State waxa dhashay ma aha degmada dadkii ilaahay in lagu gumaysto doc loo istaago waxoogaa waa laga yara quruxsan yahay qasnadaada aan ku maamulno waa laga yara quruxsan yahay. dawladda federaalka iyo maamul goboleedyada kala jiro waxaan u sheegayaa in qof walba maamulkiisa ama dhulkiisa looga dambeeyo laguna xishmeeyo ma ahan in farax la soo galo. waxa aasay hadeertaan in Wamo la soo sameeyo waxa waay nabad darrada meesha ka jirta waay hadaa fiirsi cadaalad darrada ka jirta waa waxa caawis ku kan keenay oo istaagayna xaq oo ku diidayna cadaalad darrada horumar 3 years ayaa la joogaa maxaan horumarnay meeshii joogto bay dib uga socotaa iyo barwaaqo ilaahay baa siiyay taasina uguma baahnay nabad bay u baahan tahay san barwaaqadeena u soo dhashano waana qana mooska ka baxa Wamo State hadaa waayahan ay dhageysteen macnaha markii dawladdan Wamo State la aasaasay hatta maroodigi Kenya jiri uu soo noqday oo naga cararay xayawaankii dib u soo noqday waxay maqleen waxa meeshii qabsan rabo oo aasaasay dawlad aan qori aan qaadanayn maroodigi uu soo noqday. haddaba Wamo State ayaa waxaa la yagleelay horaantii sanadkan 2016 waxaana maamulkan la sheegay in loo yagleelay sababo jira awgeed taas oo ay ugu weyneed habka loo soo dhisay maamulka Jubbaland oo aan u cuntamin dadka deegaamadaasi. Ibrahim Umar Baafe wararka Universal magaalada Melbourne dalka Australia.